halkani waa qubanaha TV ku soo dhawaada barnaamijreedkana xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah mahad maxamed salaad oo ka hortagay qorshe uu damacsanaa Fahad Yaasiin iyo sidoo kale kooxdiisa nabad iyo nolol iyadoo uu sheegay in qorshahani ay dhabarjab ku tahay dawladda Soomaaliya iyo xiriirka ay la yeelanayso dawladaha caalamka oo ay kamid tahay dawladda Itoobiya oo maanta uu tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qorshaha ay damacsaneed Fahad Yaasiin iyo nabad iyo nolol iyo sidoo kale mahad maxamed salaad oo hadal ka soo baxay saaxiib baladii soo gudbin doona qodobada kalena waxa kamid ah shirar looga soo horjeedo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xilligan ka soconaya qaybo kamid ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya sidoo kale siyaasiyiin waaweyn oo ka soo muuqday shirarkaasi oo la doonayo in xilka loogu tuuro madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani gobolka Hiiraan kooxaha macawisley ayaa waxaa lagu sameeyay ceelal ku yaala deegaano u dhow degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan al-shabaab ayaa u sameeyay ceelalka iyo xogihii ugu dambeeyay iyo sidoo kale la sheegay ciidamo ka tirsan macawisleyda oo ku waxyeeloobay ceelalkii al-shabaab ay ku sameeyeen qodobadaas iyo kuwa kale aan barnaamijkan ku faaqidi doonaa ee aan ku bilaabo saaxiibayaal taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad ayaa sheegay in uu soo qabtay ama uu helay xogo tibaaxayay in ay maleegayeen kooxda nabad iyo nolol iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qorshe la doonayo in lagu dhabarjibiyo dawladda Soomaaliya iyo nidaamka damul jadiid qorshahani ayaa la sheegay in laga dhex abaabulayo dawladda Soomaaliya sidoo kalena xubno kamid ah xukuumadda Soomaaliya ay la shaqeynayeen hogaankii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyaha salaad ayaa sheegay in uu soo qabqabtay rag ka tirsan dawladda Soomaaliya oo uu sheegay in ay la shaqeynayeen Fahad Yaasiin ayna u gudbinayeen xogo sir ah oo ku saabsan laamaha ammaanka iyo sida ay u howlgalayaan xilli habeenadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka soconayeen howlgal ka dhana waxyaabaha sidoo kalena al-shabaab iyo sidoo kale lagu soo qabqabanayay ciyaal weerarada iyo ragga dhaca u geysanaya bulshada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la rumaysan yahay in uu ka dhex shaqeynayo dawladda Soomaaliya sidoo kalena uu damacsanaa inuu xogo dheeraad ah ka helo waxyaabaha dawladda ay ku shaqeyso isagoona sheegay in uu la shaqeynayo sidoo kalena lacag ku siinayo saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda in uu helo xogihii ugu dambeeyay nabad sugidda iyo sidoo kale dagaalada ay ku qaadayso qaybo kamid ah deegaano u dhow magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli ciidamada nisay sidoo kale kuwa gorgor iyo haramcad ay dagaalo ku qaadeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayna sheegeen in halkaasi ku soo qabqabteen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab magaalada Nairobi waxaa ka soconaya xilligan shir looga soo horjeedo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani shirkan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan ama kamid ah nidaamkii hore ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena ay kamid yihiin rag si weyn uga soo horjeeday madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ee doonayana inuu halkaasi ka tago sidoo kale ragani waxaa la sheegay inuu ku jiro siyaasiga weyn iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda Aranjan Maxamuud Shido oo la rumaysan yahay dhawaan ay isku dhaceen madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sidoo kalena ay sababtay isku dhacaasi inuu xilka ka qaado wasiirkii ugu saameynta badnaa uguna awoodda badnaa maamulkiisa waa Xasan Shire Abgaale sidoo kalena uu ku bedelay ama nidaamka awood qaybsiga beelaha dega dawlad goboleedka Puntland ay saameysay sidoo kalena xilkaasi la wareegay wasiirkii arrimaha gudaha Puntland Dhamancad iyadoo wasiirkii arrimaha gudaha booskaasi loo soo bedelay wasiirkii hore arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Juxa xogaha la helay tibaaxaya in sidoo kalena magaalooyin ay kamid tahay magaalada Addis ee la qorsheenay in lagu qabto qorsho lagu dhabarjibinayo nidaamka dawlad goboleedka Puntland lana doonayo inta uu muddada ka dhamaanay madaxweynaha dawlad goboleedkaasi in laga xayoobiyo xilka wararka qaarna waxay sheegayaan daawadayaal in siyaasiyiin waaweyn oo kamid ahaa dawladdii hore Soomaaliya ee hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in qayb lixaad ay ka qaadanayaan nidaamka lagu dhabarjibinayo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland oo rumaysan yahay in khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaankiisa markaan haddii uu eegno deegaanada hoostaga degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa la soo tabinayaa in ceelal ku yaala deegaanadaasi lagu sameeyay rag ka tirsan kooxda macawisleyda oo la sheegay in loo soo qaaday cisbitaal ku yaala degmada Buulaburde sidoo kale ee degmada Maxaas iyo Beledweyne qaarkood xogaha qaar waxay tibaaxayaan in ceelalkani hore loo duugay balse dadku deegaanka ay dib u soo fageen iyagoo doonaya in ay ka qodaan ama dib ay u sameeyaan sidoo kalena biyo halkaasi ugu yimaadaan
ceelalkani iyo sidoo kale kooxda macawisleyda ayaa lasoo tabinayaa in xilligaasi aysan ka warheynin in ceelalkani ay yihiin kuwo sumaysan. wararka aan ka helayno gobolka hiiraanna waxay noo sheegayaan in kooxda al-shabaab ay ceelashaasi sumeeyeen ayna ugu talagaleen dadka deegaanadaasi degay sidoo kale kooxda macawisleyda in ay ku sumoowaan. maalmihii lasoo dhaafana deegaanadaasi waxaa ka soconaya howlgallo ka dhana al-shabaab oo ay iska kaashanayaan ciidamada macawisleyda oo la magac baxay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyagoo ku baacsanaya dagaalamayaasha al-shabaab sheegana in ay ka qabsadeen deegaano aad u fara badan oo dhaca galbeedka gobolka Hiiraan. sidoo kalena howlgalladaasi waxaa ku biiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray deegaano hoostaga degmada Buulaburde sheegana inay qayb ka yihiin howlgallada xilligan ka soconaya gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyay aad kala socoteen Qubanaha TV-na xilligan wanaagsan.